ووراي وهكع وهكعاي وهدبلو ووراي ووراي si nabada iyadoon dagaalku ka dhicin laascaanood oo aan lagu dhiman oo aan qofi uusan ku dhiman ba wallahi oo billahi oo tallahi ay Soomaaliland laascaan soo galaysa فهيما قوجا جمهورية Soomaaliland u goosata markaan maqlay 3 jeer baan suuliga aaday shuban dartii day hadii Soomaaliland madaxweyne Cabdulqaadir Fadhiyo waxa la badbaadadaada iyo badbaadada hooy bari waa inaad fahimo ku qabato adisada joogtaa kuma noolaan kartid xorriyad iyo raaxo oo dadkii aad meydkooda inta dul istaagtay telefoonadooda ku hadlaysay waxay burburisay fiimo qoojiye gidaar ama darbi 3 sano ugu dambeysay laga dhex dhisay reer Soomaaliland gidaarkaas oo loogu talagalay 100 sano hadda kadib inaysan saga talaaban dabkan aysan ku kala qaadan iska badaan nabadan kale dabka inaysan ku kala qaadan ummadaasi wada dhashay William Abtigo isku ah meelna aan kala tagin sidoo kale waxay soo afjartay fiimo munaafaqada ahayd reer Soolbar waxaan nacab walaadna u haya beesha isaaq iyagoo la og yahay labadaasi beelood inaysan jirin meel ay ku dagaalameen cidda dagaash waxay ahaayeen dawladda iyo shacabkeeda taana waxaa ku cadeynaysaa imisa dhulbahantay ama harti ama daarood ayaa ku nool deegaanada ee beesha isaaq haddii ay dagaalameen laba beelood waxaa la arki lahaa beel isaaq ah oo dhibaato u geysata ummadaasi ee kale ku dhaxay talaabo kastase oo ka dhana amniga badda cas waxay caqabad iyo burbur dhaqaale ku tahay Sacuudiga marka hore ka soo wareegay isticmaalka marinka Hormuz haddana waxaa loogu dooyimid badda cas iyo Baabul Mandab waana mid ku qasbaysa hadda Sacuudiga inuu la sameeyo Soomaaliland xiriir soo ilaashado danihiisa badda cas ilaa gacanka cadan Soomaaliland si xiriirkeeda waxa ka yaala sharci inkastoo xurguf ay ka dhaxayso Sacuudiga iyo Imaaraadka oo saameyn ku leh Soomaaliland haddana waxa ka weyn danaha Jamhuuriyadda Soomaaliland bismillaah saaxiib ku soo dhawaada madal furan anagana waliban Maxamed Aadan aan ku bilaabo mawduucan caaway mar kale waxa soo rogaal celiyay wararkii la xiriiray aqoonsiga uu siiyay Mareykanka Soomaaliland warbaahinta qadadhigaysa qodobkani waxay suurtagal ka dhigeen sanadkan intuu soo dhamaan inuu aqoonso doono Mareykanka Soomaaliland ayagoo sabab uga dhigay danihii gobolka iyo danihii Mareykanka inay ku soo aroortay halka ay ku taalo Soomaaliland iska wadaa Mareykanka ee Sacuudiga 6 bilood ugu dambeysay dagaalka kula jira Soomaaliland ayaa hadda doonaya in la sameeyo xiriir diblomaasi iyo mid difaac si looga hortago qorshe ay ku doonayso Iran inay ku godoomiso wadamada qaliishka gaar ahaan Sacuudiga godoomintana qorshaha ka leedahay Iran waxay tahay inay ku cadaadiso Mareykanka oo maalmihii ugu dambeysay ka wada gudaha Iran duqeymo aan loo meeldayin oo aan kala joogsi lahayn isagoo burburiyay kaabiyaashoodii dhaqaalaha waxaana ku hanjabeen gacanka Iran duqeymahaasi hadii uu sii wado Mareykanka labada maalmood ugu soo wajahan inay qaadi doonaan tallaabo dagaalka iyo burburka ku fidi doonto gobolka tallaabadaas ku hanjabtay Iran waxay ku macnaayeen qolyaha falanqeeya siyaasadda bariga dhexe inay tahay godoomin ay saarayso wadamada qaliishka ayagoo isticmaalaya waa Iran ay Xuutiyiinta Yemen oo xiran doona Baabul Mandab si culays loo saaro saliidda ay dhuufiyaan wadamada qaliishka taana waxay leeyihiin waxay u aragtaa Iran sida kaliya ay ku cadaadin karto Mareykanka kuna qasbi karto inuu ku soo noqdo miiska wada xaajoodka talaabo kastase oo ka dhana amniga badda cas waxay caqabad iyo burbur dhaqaale ku tahay Sacuudiga marka hore ka soo wareegay isticmaalka marinka Hormuz haddana waxaa loogu dooyimid badda cas iyo Baabul Mandab waana mid ku qasbaysa hadda Sacuudiga inuu la sameeyo Soomaaliland xiriir soo ilaashado danihiisa badda cas ilaa gacanka cadan Soomaaliland si xiriirkeeda waxa ka yaala sharci inkastoo xurguf ay ka dhaxayso Sacuudiga iyo Imaaraadka oo saameyn ku leh Soomaaliland haddana waxa ka weyn danaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aan dib ugu soo noqday mawduuca sidaan soo sheegaba mar kale waxa soo xoogistay wararkii la xiriiray aqoonsiga uu siiyay Mareykanka Soomaaliland 3 wiig ugu dambeysay gudaha Mareykanka waxa ka jiray loolan adag oo u dhaxeeya 3 dhinac Turkiga iyo Qatar wada socda oo doonaya inay ka hortagaan qorshe kasta Mareykanka ugu dhawaan karo Soomaaliland marka dambana aqoonsiga ku siin karo iyo Israa'iil oo dhinaca difaacaysa wax walba qorsheeya Soomaaliland waxa la filayaa maalmahan ugu soo aadan inuu booqdo Mareykanka ra'iisul wasaaraha Israa'iil waxaan leeyahay qodobada ka wada hadli doonaan Trump iyo Netanyahu waxa ku jira kiiska Soomaaliland mar haddii isku xirmaan aqoonsiga Soomaaliland iyo danaha Mareykanka waxay u bandaan doontaa Trump inuu la tigsado Soomaaliland siyaasadiisa ku dhisan American First intaana ka soo gudbin qodobkan sida hadda ka muuqato shaashadani tiimkii maamulka Xasan waxa soo wajahda cabsidaas oo ay ka qabaan sirdoonka Israa'iil Mossad inay u soo dhaxmaraan sirdoonka Soomaaliland NIA sida laga dheehan karo qoraalka Nikani oo ka mid ah xubnaha ugu sareeya ka shaqeeya xafiisyada maamulka Xasan
qoraalkiisana wuxuu ku sheegayaa inay jiraan ama ay hayaanba xogo khatar ku ah amniga xafiisyada xasan sheekh iyo xamse cabdibare. sidoo kale ninkaani qoraalkiisana wuxuu uga digayaa siyaasiyiinta Soomaaliya gaar ahaan kuwa saameynta leh kaamirooyinka ku xiran xafiisyada ka shaqeeyaan iyo kaamirooyinka ku xiran hoteelada ay seexdaan. Calaashan wuxuu leeyahay waxaa lidinka duubi karaa muuqaalo danna waa lidinku rikaateyn karaa ama waa lidinku xujeyn karaa. heerkaasi se kama gaarin Somaliland dagaalka. haddiise laga hadlayo sirdoon waxaa la hubaa inay joogaan Muqdisho sirdoonka Turkiga kuwaasoo muddooyinka ugu dambeeyay dhexdhexaadin ka dhex waday xasan sheekh iyo siyaasiyiinta kasoo horjeeda mucaaradka ku ah kuwaasoo isku hayaan doorashooyinka Soomaaliya. sirdoonkana sidiisaba meel kasta uu joogo iyo waddan kasta uu ka socdaba waa sirdoon, shaqadiisuna waa basaasid. wax farqina uma dhexeeyo sirdoonada wada shaqaynta la leh reer Soomaaliya iyo kuwa wada shaqaynta la leh Somaliland. marka baroorta ha joojiyaan reer Soomaaliya balaayada ayaga bilaabay iyo in isku soo kaxaysto quwada shisheeye. aan ka soo gudbo qodobkan 24 saac ugu dambeysay baraha bulshada waxaa gelgishay Fahima Yuusuf Qooje oo shalay talo ku dhawaaqday inay ka soo laabatay aragtidii Soomaaliya dibna ay ugu laabatay qarankeedii Somaliland. wixii intaa ka dambeeyay waa la yaabay baroorta ka baxaysa saddex qoloba. qolo waxay ahaayeen reerkii deegaanku ahaa Soolbari, qolona waxay ahaayeen reerkii ogaadeen, halka qolada saddexaadna ay ahaayeen reerkii Hawiye. waa la yaqaanay saddexdaas qoloba waxay ka dagaalamayaan ilaa hadda anigu waxaan fahmi waayay. waxay ka dagaalamayaan qolo afraad oo joogta Hargeysa oo kasoo horjeeda ayagana imaanshaha Fahima Hargeysa. qoladana cid kale ma ahan waa tiimkii Maxamuud Xaashi xageen noo wadan horey tiimkaasi iyo xisbigaasi Maxamuud Xaashi waxay ka hor yimaadeen aqoonsiga laga helay Israa'iil. haddana waxay diiday yihiin Fahima inay ku soo noqoto qarankeedii Somaliland. marka diidmadooda maxaa loo fasiran karaa? ma hinaase mise inay kasoo horjeedaan in la isku baadi goobo Somaliland kala tagtay? waa su'aal u baahan jawaabteeda in la raadiyo. ووراي وهكع وهكعاي وهدبلو وهدبلو ووراي ووراي وهاي هاي كاكاي يا وراي ووراي وكاكا كاكا. فهيمة قوجة جمهورية Somaliland u goosatay markaan maqlay 3 jeer baan suuriga aaday shuban dartii. haddii Somaliland la aqoonsado la ictiraafay daaroodka kaliya u dhumanaya miyaanan hawiyaha loo ogolan inay jamhuuriyadda Somaliland yimaadaan. madaxweyne cabdiqaadir fadhiyo waxa leh dowladda federaalka ee aadka u jeceshahay iyo xasan sheekh gabadha weyn haddii isku qabtaan hadii isbay joogtaan. madaxweyne cabdiqaadir fadhiyo waxa leh badbaadadaada iyo badbaadada hooy bari waa inaad Fahima ku qabato adisabay joogtaan. maamul baa tahay, madaxweynaha tahay, gabadhaasi waxay joogtaa Addis, wayna Addis ku qabataa. haddaan intii hore ku qaban weyday laascaanood haddaba madaxweyne haddaan tilmaam ku siinaya reerka reer Somaliland gudubtooda ma ilaawaan. maxamed siyaad barre Allah yarxam raaximiin oo xalaal ku jira bay dheeli haystaan ay killer ku dhagan yihiin isagoo dhintay. ma kula tahay Fahima oo halkaa taagnada waxay sameynaysa la ogaa inay ilaawayaan? Fahima wixii ay u qaawanayd ay dhexda u xidhnayd ee ay usha u sidatay inay fiyus ahayd baan oran karaa. fiyus bad xaqiiq Fahima intan bay kala soo baxday gaariga dee intan ma kala soo baxda ayadoo calanka Soomaaliya sida sidaale meel looga yimi ha garan weyda hadaba gabadhaas ta dhagaxa tuurta ta candhuufta tufta ta kaadida saydha ta xaanka saydha ta kabta tuurta ta ciidda tuurta ta laxda tuurta. Fahima Qooje waxay tiri maxaa macno waa ilaada gabar baxsatay kadib markay ogaatay in laga saarayo xilka laga qaadayo. hadday idiin timaadana aanan aaminsanayn inay ku dhex noolaan karto oo 40 mindiyood loo haysto. Fahima waxaan leeyahay kolley mar daran baad oroday oo Israa'iil baad raacday. qofkana nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri almar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. qofku raaco oo ka tirsan yahay la soo saaraya qiyaamaha. in badan oo aakhiro yahuuda lala soo xashrinayo baad hadda ku biirtay oo raacday sida aad sheegtay oo aan ka maqlay afkaaga. waxaan kugula talinayaa 2 arrimood dartoodba ka joog wali ma aadan tagin. waa mare kuma noolaan kartid xorriyad iyo raaxo oo dadkii aad meydkooda intaad dul istaagtay telefoonadooda ku hadlaysay oo lahayd naartay ku jiraan dadkoodii waa nool yahay kaagana harimayaan. aanadoodii way kula taal kaaga harimayaan. nabadgelyadaada darteed uga joog. waa qodobka labaad. Israa'iil ha raacin waqti dambe lagu jiraa
xilliguu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam yabiicu diinahu bi'arad min ad-dunya yasir qofku habeenkii waa gaal subaxdii waa muslim aroortii muslim iyo mu'min weeye galabtii waa gaal diintiisu saa u badbedelaya isagoo ku iibsanaya xoogaa lacaga lagu jirahay xilli daran baa lagu jiraa Israa'iil ha raacin Israa'iil iyadaaba wax sanka laga qabsaday adduunka oo dhan laga soo tufay America ku kacday oo rifaysa intay sii jiri doonto cidana ma taqaan laakiin waxa la qiyaasayaa 2-3 years gudahood Israa'iil inay ku daysay xilli waana goormaanni qolay qoyan maqnaan mayso nacruutaada iyo fariidnimada lagu sheegaa maxay tahay fariidnimada lagu sheegaa haddaanad ubadkaaga iyo isu hayn karin waxay burburisay fiimo qoyje gidaar ama darbi 3 sano ugu dambeysay laga dhex dhisay reer Somaliland gidaarkaasoo loogu talagalay 100 sano hadda kadib inaysan saga talaaban dabkan aysan ku kala qaadan iska badaan nabadan kale dabka inaysan ku kala qaadan ummadaasi wada dhashay William Abtigo isku ah meelna aan kala tagin sidoo kale waxay soo afjartay fiimo munaafaqadii ahayd reer Solbar waxaan nacab colaadna u haya beesha Isaaq iyagoo la og yahay labadaasi beelood inaysan jirin meel ay ku dagaalameen cidda dagaash waxay ahaayeen dawladda iyo shacabkeeda taana waxaa ku cadeynaysaa imisa dhulbahantay ama harti ama daarood ayaa ku nool deegaanada ee beesha Isaaq haddii ay dagaalameen laba beelood waxaa la arki lahaa beel Isaaq ah oo dhibaato u geysata ummadaasi ee kale ku dhex nool marka maanta haddii heshiinayaan dawladda iyo shacabkeeda waa qeyr soo kordhay iska badaa fiimo waa dumare xitaa haddii uu ku soo noqonayo Somaliland garaatiga dagaalka oo sabab u ahaaba colaadaasi ka dhacday deegaankaasi waa la soo dhaweynayaa fahiimad sheegaysa ay garaad jaamac iyo firdhiyo iyo dhammaan reer laascaanood oo dhan waxaan leeyahay dadkan waa dad waddanka u dhashay qofna lagama leh Isaaq baa gudihiisu istilay waa la heshiiyey dhaadhaa looma baahaniya hadal in la hadlaba maaha kowle waxa weeye tan gudaheeda la isku dilay reer baa la isku dilay haddana waa laga heshiiyey taasuna tii uun bay la mid tahay marka qayb inaga maqnay jirkeena oo muhiim ah waxa weeyaan dalkeena ka maqnay uun bay noo timid marka waxa weeyaan ku soo dhaweynaynaa siyaasiyiin badan kalena way soo socdaan maxamed faarax waliba caaqil reer bariya waxaan leeyahay fahiima iyo dadka ay ugu soo horeeyay waan soo dhaweynaynaa maalintii ay tageen baa reer Somaliland oo dhan ay tageen waan dad wax tara waa dad hiil leh waa dad go'aan leh marka waxaan leeyahay qalbi furan iyo walaaltinimo ku soo dhawaada marka waxaan leeyahay fiimo qoyje in aad welcome to welcome meesha way ku baahantahay noo kaalay waxa weeye gabadha waa aad iyo aad baan u soo dhaweynaa soo dhawow dalkaaga iyo dadkaaga ku soo dhawow gacmo furan soo dhawow way kasto way aragtay wixii meesha yeelan waxba ahayn ka soo aragtay anigu waxaan leeyahay waan ka duwanay dadkan maxaa safafla qaybsaday safaflaysu kala guray salaala liyahayn gacmalaysa saara runta laga siqaaya beesha sacabka loo tumay fahiimad sheegaysa ay garaad jaamac iyo firdhiyo iyo dhammaan reer laascaanood oo dhan waxaan leeyahay cadhuun baa lagu kala maqnaayo waynu istoondoonanaye way isu ololaa baa layidhi geel muxuu ahaa way isu ololaa waa isu soo ololaynaa waa isu baahannahay walaalaynu nahay dal iyo dad iyo dhaqan iyo dhiig baa inaga dhexeeya wixii daantaana daadku ha qaado baynu leenahay wixii daantaana daadku ha qaado dalkeenna iyo midnimadeenna iyo Soomaalilandnimadeenna ayaynu ka shaqaynaynaa dadka ka soo horjeedaa waa dad aan fikirkoodu dheerayn waa dad aan ku talagelin in wax la isku yahay wixii dhacay waxa la isku yahay baa ka weyn baan leeyahay intaana soo afire mawduucan caawa shala toole fiimo qoyje waxay ka degtay hadiis maanta waxay joogtay ay jigjiga ayagana waxaa kaloo joogaa jigjiga tiim ka horeeya fiimo oo ay wada hadallo u socdeen xukuumadda Somaliland oo isugu jira cuqaal siyaasiyiin ganacsato oo ka soo jeeda laascaanood sidoo kale ayagana waxaa jooga jigjiga reer Cergaabo beelihii wada degnaa Cergaabo Warsangeli Isaaq iyo dhulbahante tiimamkaasi oo dhan hal mar ayay wada imaan doonaan Somaliland gaar ahaan caasimadda ama lagu soo dhaweyn doonaa caasimadda Hargeysa imaanshahoodana kama dhaco aqoonsi ay heshay Somaliland midda kale fiimo qof caadi ah ma ahan saameyn ayuu ku dhex leedahay beelaha dhulbahante ayada 3 sano ka horna dagaal gelisay maantana waxay ka qayb qaadan kartaa sidii loo soo celin lahaa beeshaasi mawduucana caawna inta ayaan ku saafmeeray halkan aad ku taagaysid ka daa Somaliland ya ma calankan buluuga calan yaa nagaga meesha buluugan ku qoran yahay rajiga buluuga anaga surin Somaliland calanka Soomaaliya suraysa wanaga baabi horta rajigan baabi rajiga meesha anu meelan taagnahay calankii madoobe
دو مسح هورتا رجيغا نغا مسح وايا مسح رجيغا بلوغا مسح توحيدك انا فوررين توحيدك كور تاج فوررين وايا توحيدك تاج صاحب مدحا سريو horta gabadhani 200 oo dokumenti oo sira bay gacanta ku haysaa oo ay maanta isaaq gacanta u gelinaysaa waxay gacanta ku haysaa xogtii ciidanka oo dhan bay gacanta ku haysaa iyo tirada ciidanka waqooyi bari tiknikada waqooyi bari maanta u joogto oo dhan bay ciidanka bay gacanta ku haysaa adeerkeed baana waxa gacanta u geliyay waxa xilka maanta wada haya dhammaan ilaa maayar ilaa wasiir ilaa taliyaha ciidanka dhammaantood isaaq bay wada shaqayn jireen waa raggii horgalada ahaayee isaaq u shaqayn jiray si nabada iyadoon dagaalku ka dhicin laascaanood oo aan lagu dhiman oo aan qofi uusan ku dhiman ba wallaahi oo billaahi oo tallaahi ay Soomaaliland laascaanood soo galaysa taa iga qora waxani waa qorshe mar hore la sii degay